Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Xalqadeena hore waxay noogu joogtay in ay soo hor fadhiisteen ninkii Tataarka ugu sarreeyay ee Kiyuk iyo kooxdii uu soo diray Baabagu, hogaamiyahana uga soo dhigay boobkii lagu magacaabay William Robrok. Qaybteenan maanta waxaynu ka bilaabaynaa wadahadalkii ayaa bilaabmay, wuxuuna Kiyuk ku bilaabay hadalkii. Kow, in aanu marnaba aqbalin in uu dunida jiro mudana la mid ahay, haba yaraatee in aanu aqoon wax la yidhaahdo saaxiib, laakiin waxa uu yaqaanaa kelmadda la yidhaahdo dabagale. saaxiibaday waa cid ay raacdo uun hor qaada calankayga oo ay taageerta aniga, cadowgayguna waa kuwa la dagaalama. qodobkan iyo kuwa kasii liita ayuu soo bandhigay Kiyuk. waa siyaasad hankeedu hooseeyo, waa siyaasad ku dhisan anigu aan noqdo kan dunida ugu sarreeya. waxaasna maaha wax soconaya oo nin kula mid ahay qaadanayo. isla markiiba wuu diiday boqorkii Faransiisku qodobkan iyo wixii ka dambeeyeyba ee uu Kiyuk ku soo bandhigay. intaa kadib waxaa fashilmay wadahadalkii ugu horreeyay ee Tataarka iyo reer galbeedka. haddii ay reer galbeed iyo madaxdooda diideen in ay dabadhilif u noqdaan Kiyuk, waxaa jira madax kale oo iyagu ogolaaday sida maanta waa dunida ka jirta. waxaa fikiray Haythum, waa boqorkii Armeniya ee Kiristanka ahaa. go'aan ayuu ku gaadhay inuu kabaqaad u noqdo Tataarka. waxa uu istusay inuu ku qanacsan yahay dabadhilifnimada iyo sida uu doonayay Manok Khan. boqorkani waxa uu garanayaa awoodda iyo xuduudda Tataarka. waddankiisi waa la burburiyey, iyagaana burburiyey wakhtigii Genghis Khan. mar labaad xilligii Oktay. dhanka kale waxa uu ogyahay in ay dowladdiisu tahay dowlad aad u taag daran oo dhulka jiifta, oo aan wax allaale iyo wax ay Tataarku soo kordhinaysa aanay jirin. bedka Armeniya gebigiisu waxa uu ka yaryahay 30,000 oo kiiloomitir iskuweer ah. xataa Soomaaliya waa ka dhul yaryahay. ugu dambeyn waxa uu istusay boqorkani in uu laba dab ku dhex jiro. dhinac waa Tataar, dhinaca kalena waa muslimiinta oo cadaawad guun ahi ka dhaxayso. haddii muslimiinta duulaan lagu qaadana waa farxaddiisa. khilaafada haddii la ridana biyaha iyo cuntada buu ka soomi lahaa. haddii aanu maanta ogolaanin dabadhilifnimada, birita ayaa ooda loo rogayaa, xilo iyo xoolana uu si yar ku waayaya. waxaasoo dhammi maskaxda Haythum ayay ka guuxayeen. isagu cidba ma dirina waxa uu go'aansaday inuu la kulmo Kiyuk, uguna tago caasimaddiisa Qaraaqoor. wuxuu ogaaday iminka in Kiyuk wax ka fahansan yahay siyaasadda. hadal jilicsan ama istabamarsanna aan lala hortegi karin. waxa uu sii diyaarsaday hadalladii uu kula hadli lahaa ee ugu macquulsanaa. markii uu yimi Haythum, waxaa loo soo dhoweeyey si heer sare ah. xaflada ayaana loo qabtay maqaamkeedu sarreeyo. waxaa loo qaabilay si haybadi ku dheehan tahay. wuxuu la dhaqmay sidii boqor, laakiin wadahadalka waxaa tiirdhexaad u ah in ay heshiiska wadagelayaan dabadhilif iyo boqor. laba boqor wax la dhahaana ma jiraan. kadib qaabilaaddii qiimaha lahayd ee boqorkii Armeniya, kii ka dhaadhiciyey naftiisa inuu kabaqaad u noqdo Kiyuk, wuxuu bilaabay Manok Khan in ninkan la siiyo xoolo. waxaa la siiyey xoolo badan iyo hadiyado, isagoo kaga iibsanaya Kiyuk alaabadan iyo hadiyadahan boqornimadiisa, uguna beddelaya kabaqaad ama dabadhilif. waxyaabihii lagu indhasarcaadiyey Haythum waxaa ka mid ahaa: kow, waxa uu ballan qaaday Kiyuk in dhammaan loo nabadgeliyo waxa uu hanti leeyahay Haythum. laba, dhammaan kiniisadaha iyo goobaha ay ku cibaadaystaan cashuurta laga daayo. saddex, in laga caawin doono Armeniya sidii ay u soo ceshan lahayd magaalooyinka ay ka qabsatay salaajiqadii Turkigu xilliyadii ay dagaalamayeen. afar, iyo inuu boqorka noqon doono la taliyaha madaxweynaha Tataarka, gaar ahaan arrimaha galbeedka Aasiya. sidaas ayuu ku raacay boqorkii Armeniya talooyinkii Tataarka. laakiin miyaanay ahayn inaynu isweydiino muxuu sidan oo dhan ugu jajaban yahay Tataarka? sababtu waa Armeniya oo dowlad ahaan dhulka taallay wakhtigaa. xagga ciidanka waxaad arkaysaa in Armeniya aanay lahayn awood milatari oo la sheego, sidaa awgeed kuma soo kordhinayso wax saamayn ah Tataarka. Haythumna inuu kabaqaad u noqdo Tataarka ayay dantiisa ku jirtaa. dhanka kale wuxuu doonayaa Haythum inuu Tataar ka caawiyo arrimaha Aasiya si aan loo dareemin inuu keligii faa'iidaysanayo. arrimaha uu doonayay inuu ka caawiyo waxaa ka mid ah: kow, inuu aqoon dheer u leeyahay dagaalada muslimiinta iyo meelaha ay ka jilicsan yihiin. sidoo kale ninkani waxa uu ka warramay waddamada muslimiinta iyo dabeecadahooda. shakina kuma jiro wararka uu ninkani bixinayo ee wada runtaahi in ay saamayn weyn ku yeelanayso muslimiinta xilliga dagaalka. waa sida uu Maraykanku ula midoobay Ingiriiska oo awood yar, maadaama uu khibrad iyo waayo aragnimo u lahaa dhulkii muslimiinta iyo dhulalkii kale uu gumaystay. laba, waxa uu u baahan doonaa boqorka Tataarku cid ka caawisa maamulidda dunida baaxadda leh ee uu qabsaday. ma haddii uu ninkani yahay nin dhulkaas kala garanaya, isaga ayaa ku fiican arrimaha dibadda, lamana ilowsiinay in uu kabaqaad ahaa. saddex, tallaabadan waxay u furaysaa boqorka Tataarka inuu xidhiidh cusub dhex maro isagiyo Nasaarada ama Kiristanka, taasoo ay u baahnaayeen inta uu ka dhammaysanayo furashada Masar iyo Shaam. wuxuu kale oo uga baahan yahay boqorka Armeniya inuu isi soo jiido isaga iyo boqorrada kale ee reer Yurub si uu wada hadal u dhex maro. ku darso wuxuu Kiyuk la socdaa in qulubta Nasaarada ay ka buuxdo karaahiye iyo nacayb ay u qabaan Tataarka, sababtuna ay tahay gowricii iyo xasuuqii lama aragta ahaa ee ay ka geysteen Tataarku Raashiya iyo bariga Yurub. afar, la midoobidda boqortooyadan Armeniya
iyo iskaashaanbuuraysigeedu wuxuu saameyn xun ku yeelanayaa muslimiinta. 5. heshiisyadan waxay faa'iido u yihiin Tataarka halka aanay wax badan ka faa'iideyn Armenia. faa'iido haddii la sheegana waa in Haythum loogu yeedho magacyo aanu ku naaxin gaajana ka biinayn, sida la taliyaha weyn ee Tataarka, waxna laga weydiiyo galbeedka Aasiya, ama boqorkii aanu saaxiibada ahayn. dowladdii saaxiibtinimo naga dhexaysay ama xidhiidh qoto dheer ayaa labada dal ka dhexeeya, ama jaangooyaha talada madaxweynaha. waxaad arkaysaa ciidamada Itoobiya oo soo galaya magaalooyinka Soomaalida, markaasay ciddii doonayaan ku dilayaan, kuwo kalena jeelasha kala baxayaan oo siday doonaan ka yeelayaan. hadhowna aad maqlaysaa madaxdeena oo leh Itoobiya waa walaalaheen, xidhiidh fog baa inaga dhexeeya, iyo hadallo kale oo hantaatac u badan. run markaynu hadlayno waxa lagu kala leexdaa waa awood, ee maaha saaxiib iyo walaalo ayaanu nahay. waana sababta aynu arkayno heshiiskan uu Tataarku la gelayo Armenia inuu awood ku dhisan yahay. haddii aan la kala awood weynaynna, labada dhinacba mid waliba wuxuu heli lahaa faa'iido la mid ah kan kale. sidaasaana dunida ka dhacda mar kasta oo laba kala awood weyn heshiis galayaan. waa ka Haythum oo ku faanaya xidhiidhka cusub ee uu la samaystay boqorkii dunida, wax weynna uga dhigaya shacabkiisa. waxa kale oo Kiyuk doonayay inuu heshiisyadan oo kale la samaysto madaxda Saliibiyiinta ee reer Shaam. maamulo badan ayay ku lahaayeen Saliibiyiintu Shaam, waxaana ka mid ahaa Andakiya, Daraabulis, Xiifa iyo Caka. danta ugu weyn ee heshiiskan ka lahaa waa in muslimiinta lagu mashquuliyo dagaallo si aanay u difaacin Ciraaq haddii la soo weeraro. waxa kale oo ay u ahayd boqorradaas dhiirigelin, iyo haddii ay xidhiidh doonayaan in ay kala soo xidhiidhaan safaaradda saaxiibka cusub ee Armenia. isaguna safaarad cusub ayuu noqday Tataarka, una fulisa dhammaan waxyaabaha ay uga baahdaan Yurubta kale ama gobolladan. waxaa dhiirigelin labaad ah in boqorka Tataarku uu siin doono madaxda Saliibiyiinta Baytulmaqdis haddii ay isku afkartaan heshiiskan. waxaa markan Baytulmaqdis gacanta ku hayay muslimiinta, oo waxaa xoreeyey mar labaad Salaaxudiin al-Ayyuubi, Ilaahay u naxariistay sanadkii 643 hijriga, kadib markii ay madaxda Shaam u hadiyeeyeen Saliibiyiintii sanadkii 626 hijriga. waxaadba moodaa in Kiyuku gacantiisa ku jiro imka, sida uu hadiyad ahaan ugu bixinayo isagoo aan weli gaadhinba Shaam. waana arrin gumaystayaasha lagu yaqaan inuu siiyo cidda uu doonayo waxa uu jecel yahay, xaq iyo xaqdarraba. taariikhduna been ma sheegto. marka waxaasoo dhiirigelin ah laysku daro, haddana dhammaan madaxdii Saliibiyiintu arrintaas inay aqbalaan way ka warwareegeen, marka laga reebo boqorkii Andakiya ee Bohmanda la odhan jiray, oo isaguna soo dhoweeyey markiibana isku tiriyey Tataarka. haddaba waxa isweydiin mudan sababta ay u diidan yihiin heshiiskan iyadoo waxan oo ballanqaad ah loo sameeyey. sababo badan ayaa ka hortaagan, waxaana ka mid ah: 1. waxay garanayaan inaanay ballan lahayn Tataarku. 2. waxay ku dhex jiraan bartamaha caalamka Islaamka, sidaa darteed khatarta muslimiintu ay ku hayaan oo kale ayay Tataarna ku hayaan. markaa xamaasad ma qaadin madaxdan oo laguma degdegin ogeysiiskan Tataarka, si cadna umay diidin, laakiin waxay ula dhaqmeen si munaafaqadaysan. waxaana ay doorteen inay meel dhexdhexaad ah istaagaan, laba gebi dhexdood, waa Tataarka iyo muslimiinta dhexdooda, kadibna ay la saftaan kooxda guulaysta labadan, kana cudur daartaan inaanay guushii kala qayb gelin duruufo dhulkooda ka jiray awgeed. dhaqankanna maanta waxaa loogu yeedhaa siyaasad. 3. waxa uu mar kale ku dhawaaqay heshiis uu la geliyay nasaarada Shaam iyo Ciraaq, laakiin doorkan heshiisku madax kuma socdo ee waa nasaaradii ku dhex noolayd muslimiinta Shaam iyo Ciraaq. laakiin waxay ahaayeen heshiisyo qarsoodi ah oo lala galay qaar ka mid ah madaxda nasaarada. taasna waxay fududaynaysaa soo gelitaanka Tataarka ay soo galaan dhulka muslimiinta. dadkan shacabka iyo madaxda isugu jira hawshooda ugu weyn waxay ahayd in ay warar ka soo ururiyaan dhulkan muslimiinta una soo gudbiyaan Tataarka. wuuna ku guulaystay Monako Khan tiro aad u badan oo dadkan ka mid ah inay fuliyaan howlgalladan wuu igmaday. waxaana dadkan madax u ahaa nin la odhan jiray Badriik oo joogay Baqdaad, magaciisa dhabta ahina uu ahaa Maakiik. waxa uu ahaa basaaskii fududeeyey kana qayb qaatay qabsashadii ay Tataarku qabsadeen Baqdaad, khilaafadiina ay rideen. 4. Monako Khan wuxuu heshiis la saxeexday boqoradii Georgia ee Kiristaanka ahayd, iyadoo oo ay taariikh madow ka dhaxaysay Tataarka iyo Georgia. taariikhda Georgia iyo muslimiinta ka dhaxaysa ayaa tan hore kasii madoobeyd, laakiin waxa ay nasaarada Georgia door bideen in ay la midoobaan cadowgooda cusub, ulana midoobaan la dagaalanka cadowgii hore ee muslimiinta. taasna waxaa sababay 2 arrimood. qodobka hore, Tataarka oo haystay awood aad u badan, lana hubo inay ka guulaysan doonaan muslimiinta. qodobka labaad, dagaalka ka dhexeeya nasaarada iyo muslimiinta waa mid caqiido oo weligeed jiraysa. sidaan hore u soo sheegnay, nacayb aad u badanna wuxuu ka dhexeeyey labada dhinac, mana jirayso caqiidadooda cid iska beddelaysa, sidoo kale mana jirto cid beddelaysa nacaybka ay dhanka kale u hayso. maqnaanta nacaybkuna waa iyadoo caqiidadu meesha ka baxdo. laakiin dagaalka Tataarku waxa uu ahaa dagaal daneed. haddaad danahooda u diidid dagaal filo, haddaad si danahooda u fulisaan heshiis baad tihiin, saaxiibana waad tihiin.
waxay iswaafaqay danihii Georgiya oo Nasaare ahayd iyo danihii Tataarka oo bilaadiin ahaa markaa hal waddo ay wada marayaan. taasna mar labaad oo waxa ay ku sheegaan siyaasadda. haddii wada hadallada iyo heshiisyada aan soo sheegnay hal kifad wada saarnaayeen, kuwan kale aan sheegi doonana waxay saaran yihiin kifad kale. uma sheegayo oo qura muhiimadda ay lahaayeen, laakiin waxaan u sheegaya yaabka ay lahaayeen. Monaco Khan wax heshiis ah lama gelin madaxdii muslimiinta, umana yeedhan, sababtoo ah wuu yesay. mid kasta oo ka mid ahna wuxuu xukumay dhowr kiiloomitir. markaas ayuu haddana isku magacaabay amiir ama madaxweyne, ama waxa uu isku naanaysiyaa magacyo waaweyn sida kii ugu sharafta badnaa madaxda. Monaco Khan waxa uu wakiishay wada hadalladan duleynta ah walaalkii Hulagu, waa kuwan u soo degdegaya muslimiintii taagta yaraa heshiiskan ay la geli doonaan Tataarkii awoodda badnaa. waxaad arkaysaa kuwii qulubta ka bukay oo u degdegaya dhinaca gaalada si ay heshiis ula galaan. waxaa Hulagu yimi Badruddin Lulu, waa hogaamiyihii Mawsil, si uu ula gaashaanbuuraysto. waxaa yimid labadii suldaan ee Salaajiqada, Kawkaaskii labaad iyo Qarji Arsalaankii afraad, si ay ula midoobaan Tataarka. waxayna ka talinayeen meel aad u xasaasi ah. labadoodu waxay ka talinayeen waqooyiga Ciraaq. labadan suldaan la midoobidoodu waxay Tataarka ka caawinaysaa in Ciraaq dhanka galbeed laga go'doomiyo. sidoo kale waxaa yimi Naasir Yuusuf oo ka talinaya Xalab iyo Dimashq labadaba. waxaa xilkan kaga tegay hogaamiyihii mujaahidka ee Salaaxuddiin, dhinacna kama shabaho akhlaaqdii iyo dhaqankii mujaahidkaas. waxa uu ahaa mid aad u liita oo gaadhsiisan ilaa heer uu inankiisu diray Hulagu si uu uga mid noqday ciidamada Tataarka oo keliya. sidoo kale waxaa yimid Ashraf Ayuubi oo gudoomiyey Ximsa, si Tataarku uga aqbalaan codsigiisa ah aynu midowno. waa liidasho iyo sidaalkii ugu dambeysay. waxaa kale oo ay sii siyaadinaysaa awoodda Tataarka ee go'doominta Ciraaq dhan kasta. madaxda muslimiintu waxay ogaan karaan wararka dalka Ciraaq si sahlan.